subaxii cad ceedi hadhaa amase cawo daran habeen bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni subax wanaagsan oo hadahan oo kale uga barateen inu diga imaado raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. meel kasta oo codkaygu idiga soo gaadhayo dhegeystayaal waxaanu leenahay subax wacan oo wanaagsan. qormooyinka in kusoo qaadano toddobaadka waxaa ka mid a warbixin la xidhiidha xidhiidhka samafalka iyo cimriga qofka, qisada bulshadii saboolka ahayd iyo deegaankii dahabka ahaa ee ku yaalay qaaradda afrika, xidhiidhka wahsiga joogtada ah iyo fashilka nolosha, xabsi la yaab leh oo dadku iskood u tagaan, awooddii dalka jabaan ee horaantii qarnigii 20aad. waxaan barnaamijkeena ka maqnaan doonin dhanka maqalka sugaanta. meel kasta oo codkaygu diga soo gaadhay waxaanu leenahay dhegeystayaal subax wacan oo wanaagsan. halkani waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. aynu soo qaadano xubinta ugu horeysa barnaamijkeena toddobaadkan, xidhiidhka ka dhexeeya samafalka iyo cimriga qofka. daraasad lagu baahiyey wargeys ka mida wargeysyada kasoo baxa wadamada carbeed ayaa cadeeyey in qofka akhlaaqda wanaagsan ee aada u ilaaliya xuquuqda bulshada uu ka cimri dheeraado dadka dhibta badan ee xadgudubka uu ku badan yahay. daraasada ayaa sheegtay in dadka aada u ilaaliya walaaltinimada, samafalka bulshada iyo ixtiraamku ay yihiin kuwo ay ku yar tahay anaaniyadda iyo keli waxisladoonku, taasi oo sababta in shaqada maskaxdu had iyo jeer ay si degan u howlgasho, cimrigeeduna ku dheeraado, halka kuwa cadhada badan, xasadka iyo dhibtu ay ku badan tahay ay maskaxdoodu mashquul ku noqoto howlaha aan waxba u tarayn, taas oo iyaduna ku keenta in cimrigoodu uu noqdo mid gaaban. waxaa kale oo daraasadu sheegtay in jimicsiga iyo ilaalinta caafimaadka iyo nadaafadda ay iyaguna qayb ka yihiin cimriga qofka oo dheeraada. dhegeystayaal halka nagala socota waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. maxay ahayd bulshadii saboolka ahayd iyo deegaankii dahabka ku ahaa ee ku yaalay mid ka mida dalalka qaaradda afrika? weriye ka tirsan wargeyska kuliyom ayaa booqasho ku tegay dalka maali si uu wax uga soo ogaado habka ay dadka maali ula soo baxaan dahabka dhulkooda ku kaydsan. xukuumadda dalkaasi ayaa u fasaxday in dadku dhammaantood ay la soo bixi karaan dahabka. dalka maali ayaa ah dalka saddexaad ee qaaradda afrika ee dahabka qaniga ku ah. dadka ayaa iskood u qota goobaha ay ku tuhmayaan in dahabka uu ku jiro, iyagoo wakhti badan ku qaata inay halkaasi kala soo baxaan dahabka ku kaydsan dhulkooda. dalka maali waxaa jira goobo laga ganacsado dahabka oo markiiba laga iibsado dadka sita dahabka, inkasta oo ay badankoodu leeyihiin godad ay shaqaale uga shaqeeyaan. weriyaha warbixintan soo qoray ayaa sheegay inay yar yihiin dadka la soo baxa dahabka nadiifta ah ee loo baahan yahay, iyagoo intooda badani aanay lahayn aqoonta ay wax ku raadinayaan. waxa kale oo yaab noqotay in dhulka sidaasi hodanka ugu ah dahabka, gaar ahaan nooca qaaliga ah, ay haddana dadkiisu yihiin kuwo ku jira dalalka dunida ugu saboolsan. warbixinteenna waxaynu ku eegaynaa xidhiidhka ka dhexeeya wahsiga joogtada ah iyo fashilka nolosha. dhaqanka howlnacaybka iyo daalka shaqadu ama wahsigu calaamad uma aha dad gaar ah, waayo xataa dadka horumarka gaadhay ee dadaalka badani inay wakhtiyada qaarkood wahsadaan waa wax ku abuuran aadamiga. haddaba arrinka lagu kala duwan yahay ayaa ah inay iyagu kuwa dadaalka badani ay markiiba oo ay hawshooda dib ugu noqdaan, halka kuwa kale ay wahsiga wehel joogto ah ka dhigtaan kuna adkaato dib u noqoshada howlahoodii shaqo iyo firfircoonidoodii. ceeb ma aha inaad mar wahsatid, laakiin waxaa ceeb ah inaad mar walba howlnacayb joogto ah aad ku jirto, taasi oo keenaysa wakhti iyo fursado badan oo qaali ah oo ku dhaafa. waana kaasi fashilka dhabta ahi. arrimaha ugu yaabka badan ee wahsiga iyo caajiska iyo firfircoonida la xidhiidha ayaa ah in maalqabeenka Bill Gates
isna yidhi anigu weligay waxaan qaataa shaqaalaha caajiska ah maxaa yeelay mar kasta waxa uu helayaa dariiq fudud oo uu hawsha ku qabto taas oo aan uga faa'iidaysanayo kamidho dhalinta howlaha shaqo in sida ugu fudud ee ugu gaaban loo qabto looguna guulaysto. tuugayga noloshana cidan uga dambeeyo ina doorkan laytal duruufii dhacay baray tuugayga noloshana cidan uga dambeeyo ina doorkan laytal duruufii dhacay baray damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacee la raamsado ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacee la raamsado kan daris wanaagiyo inaan laba dal noqoniyo samuhu aanu deeqino waxba hay dardaar wari taniba way ku yeelsiin nikaan daris wanaagiyo inaan laba dal noqoniyo samuhu aanu deeqino waxay danaynine cirka sare barsoo dumiyo sida daawo shilma marka dababu laqme sida daawo shilma dabku kala eryaayo cayayaanka duudkiyo dacalada ka saaran dhinacyada ka taataan dabku kala eryaayo cayayaanka duudkiyo dacalada ka saaran dhinacyada ka taataan digsiba hadduu karo daboolka iska qaadaye digsiba hadduu karo daboolka iska qaadaye nin xajiinu dibad baxay hadalladu daldalay dayl qaab ma gulba nin xajiinu dibad baxay hadalladu daldalayo dayl qaab ma gulba ninkaan daris wanaagiyo inaan laba dal noqoniyo samuhu aanu deeqino waxba hay dardaar warin taniba way ku yeelsiin ninkaan daris wanaagiyo inaan laba dal noqoniyo samuhu aanu deeqino waxba hay danaynine
cirka sare bar soo dumi 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 cirka sare bar soo dumi. dhegeystayaal halkan nagala socota waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhegeystayaal waxa la soo gaadhay xubinteeni gaarka ah ee barnaamijka maxaad ka ogtahay xabsiga la yaabka leh ee ay dadku iskood u tagaan. xabsi ku yaala gobolka Uttarakhand ee dalka Hindiya ayaa laga bilaabay arrin aan hore loogu aqoonin si looga hortago dhibaatooyinka bulshada qaarkood ka jira. maamulka xabsigan oo ka shaqeeya magaalada Haldwani ayaa hirgeliyay barnaamij uu xabsigu leeyahay oo dadka caadiga ah u fasaxaya in lagu xidho halkaas iyagoo aanay wax maxkamadii soo xukumin. qof kasta oo codsada in lagu xidho xabsigan ayaa halkii habeenba laga qaadaya lacag dhan 500 oo lacagta dalkaasi Hindiya ah. saraakiisha gacanta ku haya xabsigan dhaqanka la yaabka leh ayaa la yimid hawshan iyagoo sheegay in arrintani ay dadka ka badbaadinayso inay maraan ciqaab weyn oo ay ku mutaystaan dambiyada qaar. dad badan oo ku nool Hindiya ayaa xabsigaas u taga si ay uga hortagaan waxyaabo ay aaminsan yihiin in ay ku dhici doonaan mustaqbalka, kuwaasoo ay u sheegeen dadka wax faaliya oo ay kala tashadeen mustaqbalkooda. faalka oo ah dhaqan ka jira Hindiya gudaheeda ayaa dadka qaar loogu sheegaa in ay noloshooda waqti ka mid ah xabsi ku qaadan doonaan, sidaas awgeedna ay habboon tahay inay waqti cayiman si iskood ah xabsiga u galaan. horey ayay u jirtay in dadka faalka sameeya ay macaamiishooda kula taliyaan inay xabsi galaan. barnaamijkan cusub ee laga bilaabay xabsiyada ka jira Hindiya gudaheeda ayaa loogu talagalay in qof kasta uu xor u yahay inuu lugihiisa ku tago xabsiga, lacagna laga qaado maalmaha uu halkaas ku xidhnaanayo. warbixintana dhegeystayaal waxaynu ku eegaynaa awooddii dalka Jabaan ee horaantii qarnigii 20aad. Jabaan ayaa ahayd dowlad weyn oo dhulka Asia ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan aad ugu sarreysa horaantii qarnigii 20aad. taasi ayaa keentay inay xataa dalka Shiinaha duulaan ku qaado oo ay gumaysato isla qarnigii 20aad horaantiisa. Jabaan waxay ka samaysay Asia gumaad aad u weyn ilaa la sheego in shacabka dalkaasi iyagoo nool la aasi jiray. xoguhu waxay sheegay inay muuqdaan dad shacab ah oo Shiina ah oo ay ciidanku qabsadeen. ciidanka Jabaan ayaa gumaadka halkaasi ay ka geysteen waxay ku dileen tiro aad u fara badan oo dadka Shiinaha ah. waxa kale oo iyaguna si arxan daran u dili jireen dumarka iyo carruurta. taariikhdan ayaa dalka Shiinaha looga yaqaanaa waayadii madoobaa ee gumaystaha Jabaan. dagaalkii labaad jabkii ku dhacay Jabaan ayaa sabab looga dhigay daandaansigaasi iyo xasuuqii ay ka geysteen guud ahaan qaaradda Asia gaar ahaan Shiinaha. sanadkii 1945 markii Mareykanku uu ku riday qunbuladii ugu weyneed dunida la isku rido magaalada Hiroshima, waxay isu rogtay magaaladu meel qiiq ka baxayo oo kaliya. qunbuladan ayaa miisaankeeda lagu qiyaasaa 12,500 oo tan oo wadata daynabooyinkii qaraxa sameynayay. markii ay qunbuladu dhacday dadku wixii dhintay mooyee wixii soo hadhayna waxay galeen jahwareer iyagoo aan habe yaraatay garanayn halka ay ku sugan yihiin. laakiin saacado kooban kadib ayay dadku wax kala garteen, waxaana laga qaaday magaalada sawiro naxdin iyo argagax abuuray. kuma ayuu ahaa sirdoonkii mucjisada ka noqday gudaha Israa'iil dhammaadkii qarnigii 19aad. Rafat al-Hajjan waa mid ka mid noqday basaasiintii caanka ahaa ee dalka Masar. magaciisa runtaahina waxa uu ahaa sida taariikhanada qaar sheegayaan Suleymaan Jamaal. Israa'iil gudaheedana waxaa looga yaqaanay Jack Beaton, iyadoo sirdoonka masaariduna ay u yaqaaneen Rafat al-Hajjan. waxa uu ka furtay xarun ganacsi oo weyn magaalada Tel Aviv, waxaana uu noqday qof caan ka ah bulshada Yuhuudda dhexdeeda. wuxuu sanado badan basaasayay Israa'iil isagoo u soo gudbiyay sirdoonka Masar warbixino badan oo muhiim ah, isagoo u soo marin jiray shirkad dalxiis oo Israa'iil gudaheeda ka shaqeynaysay. dagaalkii 1967 ayuu siro badan uga soo gudbiyay dalkiisa Masar isagoo ku sugan Tel Aviv. wuxuu qayb weyn ka qaatay diyaargarowgii dagaalkii 1973 isagoo warbixin sugan ka keenay qalcadii Barliif ee Yuhuudda.
masar waxaa looga yaqaanay geesi muddo 17 sano ka shaqeeyay gudaha Israel. Rafat al-Hajjan waxa uu ku dhintay dalka Talyaaniga 1982 iyadoo muddo fara badanna uu halkaasi xanuun u jiifay. xanuunka uu u dhintay ayaa sida taariikhyahanadu ay sheegayaan ahaa kansar kaga dhacay sanbabada. Rafat al-Hajjan ugu dambeyntii waxa laga sameeyay filim laga daawado TV-yada Masaarida muddadii howlaha sirdoon uu ka waday Israel gudaheeda, kaas oo uu matalo fanaanka weyn Maxamuud Cabdicasiis. taariikhyahanada ayaa sheegay in uu ahaa Rafat al-Hajjan sirdoon aad uga yaabiyay dowladda Yahuudda. Virginia Hall waxay ahayd gabadh basaasad Mareykan ah oo ku dhalatay Baltimore sanadkii 1906 waxaana ay ka qalin jebisay labadii kuliyadood ee qiimaha weyn ku lahaa waxbarashada sare ee haweenka ee kala ahaa Bernard College oo ku taalay magaalada New York iyo Radcliffe College oo iyaduna dalkaasi ku taalay gaarna u ahayd waxbarashada haweenka. haweeneydan Hall waxa kale oo ay markii dambe waxbarashadeeda ka sii wadatay dugsiyo iyo macahadyo kala duwan oo ku kala yaalay wadamada Faransiiska, Jarmalka iyo Australia. haweeneydan waxay ahayd qof leh hiigsi iyo hiwaayad fog oo ah in ay ka shaqeyso waaxda arrimaha dibadda ee dalkeeda. sidaas awgeed markii la arkay hamigeeda iyo firfircoonideeda xad-dhaafka ah ee ay leedahay waxa iyadoo 25 jir ah loo magacaabay xoghayaha xafiiska adeega dadweynaha u qaabilsanaa safaaradda Mareykanka ee ku taalay magaalada Warsaw ee caasimadda Poland. shaqadaas Hall aad ayay ugu faraxday sababtoo ah waxa ay u arkaysay inay u tahay fursad weyn oo u fududeyn karta inay ku guuleysato ka dhabaynta riyadeedii. laakiin nasiib darro muddo yar kadib markii shaqada loo magacaabay Hall waxa soo gaadhay dhaawac ay ku weeday labadeedii lugood mid ka mid ah. kadib markii iyada oo ku jirta hawl ugaarsi ah ayaa si lama filaan ah isugu qarxisay qorigeeda ay u adeegsanaysay ugaarsiga waxaana lugta bidix kaga dhacday rasaas. sidaas daraadeed maadaama waqtigaasi aqoonta iyo qalabka dhinaca caafimaadku ay labaduba koobnaayeen, dhakhaatiirtii daweynaysay dhaawacii soo gaadhay Virginia Hall kumay guuleysan lugteeda inay badbaadiyaan. sida awgeed waxaa sanadkii 1933 Virginia Hall laga gooyay lugtii dhaawacu ka gaadhay iyadoo halkaasi qalliin loogu sameeyay. dhakhaatiirtii qalitaanka ku sameeyay ayaa waxay u geliyeen qori loox ah lugteeda bidix oo loogu talagalay inay ku boodo halkii ay ka guurguuran lahayd. muddadaas wixii ka dambeeyay Virginia Hall waxaa lagu naanaysi jiray leg oo ah lugtii macmalka ama sinaaciga ahayd. nafaanimadeeda ayaa Virginia waxay u horseeday inay ku doodo inay xaq u leedahay in la baro xirfado dheeraad ah, arrintaas oo loo tixgeliyay markii dambe. muddada wixii ka dambeeyay Virginia waxay wasaaradda arrimaha dibadda siyaabo kala duwan uga shaqaysay dalalka Turkiga, Talyaaniga iyo Estonia, kuwaas oo ay midba xilli ka shaqaynaysay intii aanu ku soo dumin saqaf muraayad ahi. marka taas laga yimaadana waxay ahayd qof cajiib ah oo luqadaha Talyaaniga, Jarmalka iyo Faransiiska si fiican ugu hadasha. Mrs Virginia Hall waxay iska casishay shaqadeedii sanadkii 1939 waqtigaasi oo taaka kasta oo Yurub ka mid ah uu ka bilaabay dagaalweynihii labaad. waxaana ahayd gabadh dhalinyaro ah oo awood badan isla markaana leh hami iyo ujeedo fog. haweeneyda Virginia Hall kamay cararin qaaradda dagaaladu halaakeeyeen kumanay noqon dalkeedii Mareykanka oo waqtigaasi nabad ahaa. iska dhaaf inay sidaas yeeshay waxa ay ka qayb qaadatay shaqadii samafalka ahayd waxaana ay noqotay darawalka mid ka mid ah baabuurta adeega gargaarka degdega ah ee dalka Faransiiska ka howlgala iyadoo hawshaasi waday ilaa Faransiisku isdhiibay sanadkii 1940. waqtigaasi ayay ka mid ahayd dadkii loo daadgurayay magaalada London ee dalka Ingiriiska iyadoo mar kale safaaradda Mareykanka ee London ka qabatay booska adeegaha bulshada. waxaana ay si dhaqso ah ugu baraarugtay kooxihii sirdoonka Jarmalka ahaa ee howlgallada gaarka ah doonayay inay ka fuliyaan gudaha Ingiriiska, kuwaasi oo raadinayay wakiiladii sirdoonka ahaa ee la shaqaynayay kooxihii Faransiiska ee iska caabinta kula jiray. sanadkii 1941 waxa ay bedeshay shaqadeedii iyadoo
iyadoo noqotay wariyaha u shaqeeya wargeyska New York Post kadib markii ay tagtay magaalada Lyon ee dalka Faransiiska, waxaana ay ku shaqo gashay magaca ah wariyaha iyadoo noqotay gabadhii ugu horeysay ee wakiil uga noqota dalka Faransiiska, waxaana ay halkaasi joogtay muddo 14 bilood ah. shaqada ay ka haysay ayaa ahayd inay bixiso adeegyada fariimaha degdega ah ee la isu dirayo, waxaana ay kaalmeyn jirtay askarta dagaalka ka baxsanaysa ee Jarmalka ah iyo welibana maxaabiista dagaalka lagu qabto, iyadoo sidoo kale heli jirtay qalab ku habboon inay si fudud wax loogu basaaso looguna diro macluumaadka muhiimka ah. iibka qalabka saxaafadda sida waraaqaha iyo qalimada khadka ah ayaa ahaa kuwo mamnuuc ah, iyadoo kooxaha iska caabinta ee Faransiiska aan loo ogolayn inay fikradahooda ku qoraan kuna soo bandhigaan wargeysyada. haddaba taageeradii Hall iyo kuwii iyada la mid ahaa ay siiyeen wargeysyada ayaa ka dhigtay in sanadkii 1942 ay wargeysyadu gaadhaan inay helaan in ka badan 2 milyan oo akhrista ah oo Faransiiska gudihiisa ku nool. waqti kasta waxa ay u diri jirtay warbixinaha New York Post si ay u qariso shaqadeeda rasmiga ah ee ay hayso oo ahayd howlaha sirdoonka iyo basaasida. intii muddada lagu jiray ayuu Jarmalku ka war helay howlaha ay ku jirto Hall. sirdoonka Faransiiska oo labada dhinac la shaqeynayay Jarmalka iyo Faransiiska ayaa fashiliyay haweeneydan dhaawaca ahayd ee lugta macmalka ah ku soconaysay, taas oo xidhiidh dhow la lahayd kooxihii basaasiinta ee la shaqeynayay Faransiiska. ugu dambeyntii waxay fulisay howlgallo guul ah oo ay ku taageerayso ciidamadii iska caabinta ee Faransiiska, kuwaasi oo markii dambe bilaabay inay niyad xumi ku ridaan Jarmalka. dhegeystayaal halka nagala socota waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa la soo gaaray guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. intaynu barnaamijkan mid la mid ah aynu ku kulmayno waxaan diga tegaynaa codka Kinsi Xaaji Aadan. وقرقرت يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي وقرقرت
qalbiga kaa gelay cashaqa laba'aan isgaraniyo laba gooni kala maray laba'aan isgaraniyo laba gooni kala maray mugarqaadi laba'aan isgaraniyo laba gooni kala maray laba'aan isgaraniyo laba gooni kala maray mugarqaadi gacan waxsiisiyo gacan waxsiisiyo gacan u gargartaa raba u gargartaa raba gacan waxsiisiyo gacan waxsiisiyo gacan u gargartaa raba u gargartaa raba horta yaabalgabay horta yaabalgabay horta yaabalgabay horta yaabalgabay hadduu jirase yaa gaday hadduu jirase yaa gaday hadduu jirase yaa gaday hadduu jirase yaa gaday yaa gaday Did
Yeah.